بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودكتور محمد عبد الله عيسى جارديد دكتورك عذرة جوتي عذرة فاف إسبتالك أندرو كير دمان داوديال حلقة دي السدحات أيامانت إن شاء الله مرينا رمضان كريم كل سنة أنتم طيبين مؤكتهي بيها عبيسيد حبين كرمضان كأ إن المهم وتهي عافيماتك إن كل سنتد مالنتك رمضان inta badan xaaladaha aan aragno oo xanuunada iyo ramadaanka gudaheed aan aragno waxa sabab u ah oonka ama biyo yarida inka badan gaajada waxa ognahay biyaha aacabtid habeenkii waa inay u dhaxeeyaan 8 galaas ilaa iyo 12 galaas oo ama bakeeri oo ah biyo biyaha marka waxay ka ilaalinayaan in maalintaada ramadaanka aysan aadan dareemin dehydration ama qaleel ama fuuqbax oo jirka sida ogtahay dhaqaaqaada hadalkaaga kaadida waxa soo dhan kulli waa jirkaada biyo oo luminayo dhididka waxa soo dhan marka hadii biyo kugu filan aad habeenka soo qaadan marka waxa bilaabanayo in jirkaaga uu dareemo qaleel ama fuuqbax taasna waxay keenay in qofka uu ku bato madax xanuun tiro badan maalintaadii ramadaanka ah in aad daal tiro badan aad dareentid oo aad howl qabsan karin waxyaabaha soo dhan waxa keenayso biyaha yar oo aad habeenkii aad qaadatay sidoo kale calool fadhiga ramadaanka la dareemo inta ugu badan waxa sababtiisa ah biyaha yar waqtiga ramadaanka la qaadanayo taasna waxay keenay in qofkii caloosha ay fadhiisato dheefshiidkiisa uu xumaado xaaladaha soo dhan ee qofka ay ku keento sidoo kale kaliya xanuunka iyo dhagaxaanta iyo xanuunka laga dareemo inta badan isbitaalada noogu imaadaan waxay aad u badan tahay waqtiga ramadaanka waxaana sababo in biyaha waqtiga habeenkii oo aad u yar qofka uu qaato marka biyo badan ay qaadateed waxay badbaadinayaan caafimaadka iyo badqabka kaliyahaada sidoo kale waxyaabaha oo biyo cabista ay muhiim u tahay waxa kamid ah in qofkii uu helo caafimaad iyo in ay caafimaad uu ku soomo haduu yahay dadka inta badan qabo xaaladaha sokorta iyo wadna xanuunka iyo cudurrada waaweyn biyaha badan ay qaadanaysid waxay badbaado u yihiin marka caafimaad iyo badqabka xaaladahaas badan oo caafimaadka ah waxaan marka ku talin lahaa ka dhakhtar ahaan in qofka uu qaato biyo badan asiga oo hal mar oosan qaadanaynin tusaale ahaan in laba bakeeri camal uu qaato waqtiga afurka markii uu taraawixda uu dukanayo mise afurka kadib uu qaato laba bakeeri meeshaas afar maraysa taraawixda ilaa iyo suxuurta camal qofka uu intaas uu qaato ilaa 6 bakeeri markuu suxuurta kadibna qofka uu qaato 2 bakeeri intaas marka wuxuu marayaa 12 bakeeri marka insha Allah marka waxaan rajeynayaa marka in aan ka dhigano habit ama aan la qabsasho ka dhigano in biyaha cabno ogaanane biyo cabis yarida inay culays ku keenayso maalintaada soomka ee labaad aad iyo aad u mahadsantihiin ramadaan kariim kullu sano wa antum tayyibin adeega maamuus ee shirkadda hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees